بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو دوادا ورئيس gaar ah oo magaalada Muqdisho aan kula yeelanayo xildhibaan Saleebaan Daahir Bile oo ah xogayaha joogtada ah ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kalena ah xubin sare oo ka tirsan xisbul xaakimka wadanka Djibouti oo muddooyinkii la soo dhaafay isaga iyo wafdi hogaaminayo ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu horeyn mudane waan ku soo dhaweynayaa Saleebaan waxaa faahfaahin naga siisaa safarkan aad ku timaadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo arrimaha uu daaran yahay bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay mudane wariye awalan waxaan hawada ka salaamayaa dhammaan shacbigii reer Djibouti ee aanu ka nimidnay haddii aan la yiraahdo iyaan maartay salaan guud salaamayna annaka oo saddexdeedii xildhibaan ee halkan aan ku nimidnayba haddaan su'aashaada toos uga jawaabo halkan waxaanu ku nimidnay martiqaad uu noo fidiyey gudoomiyaha golaha shacbiga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Madoobe sidaasaanu ku nimidnay kadibna waxaanu sidaa ka qayb galnay kalfadhigii saddexaad ee furitaanka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaanu ka qayb galnay oo waliba la nagu marti qaaday inaanu ka jeedino halkaasi khudbad ka jeedino khudbadaasoo qeexaysay si guud iyo si koobanba u qeexaysay xidhiidhka iyo wada dhalashada qotada dheer ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Djibouti oo ah laba jamhuuriyadood oo walaalo ah laba shacbi oo walaalo ah dadku wadannada kolka cilaaqaadkooda sheegayaan waxay yiraahdeen wadanka waa walaalahan ay heblaayo laakiin kani waa kii wada dhalasho iyo walaalayid waa dhalashadii runta ahayd ee dhiigga weeyaan kolkaas sidaas ay maartay uga duwan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliya ay uga duwan tahay wadannada kale waa maasan tahay mudane xildhibaan Saleebaan maalmo ka hor waxaad ka qayb gashay furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud uu furay maxaad nooga sheegi kartaa heerka wada shaqaynta iyo iskaashiga labada baarlamaan ee labada dal ee Soomaaliya iyo Djibouti waa runta dharaartaanu nimidnay dharaartii ku xigtayba waxaanu ka qayb galnay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka 11aad ayaanu ka qayb galnay waxa halkaasi ku dhanaa oo madasha golaha baarlamaanka ku dhanaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse labada gudoomiyayaal labada gole ee baarlamaanka golaha sare iyo golaha hoose mudane Sheekh Aadan Madoobe iyo Cabdi Xaashi waxa halkaa kaloo ku dhanaa dhammaan xubnihii ka koobnaa labada gole ee maartay baarlamaanka golaha sare iyo golaha hoose senateeradii iyo xildhibaanadii guriga hoose ama golaha hoose ee baarlamaanka halkaasi waxaa laga soo jeediyey khudbado aad u qoto dheer waxaa lagu qeexay xidhiidhka ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda ay walaalayihiin ee Djibouti mar dhaweyd oo saa u sii dheereen oo noo yimiday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho noogu yimiday Djibouti saxaafaddu waxay weydiiyeen su'aal waxay yiraahdeen mudane madaxweyne maxaa inaga dhaxeeya adiga iyo ninka iyo Jamhuuriyadda Djibouti wuxuu ku jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud annaka iyo Jamhuuriyadda Djibouti waxa naga dhaxeeya wax ayna biyana maydhin birina goyn run ahaantii labada eray wax loo dhaafay oo lagu tilmaamo ama lagu macneeyo xidhiidhka qotada dheer leh ee wada dhalasho ee ka dhaxeeya labada jamhuuriyadood meel loo dhaafay ma jiro madaxweynaha si cad ugu koobay in khudbad malaha dhowr saacadood la jeedin lahaa ama dhowr beej la akhri lahaa ayuu ku soo koobay laba kelmadood aniguna tiyo kale ayuun baan leeyahay waayahay markaan u imaano wada shaqaynta labada baarlamaan inta ay jireenba ilaa iyo intii lagu soo dhisay dawladdii u horeysay ama xukuumaddii u horeysay magaalada Carta lagu soo dhisay markuu sanadku 2000 ahaa ilaa hadda imika oo ay ka soo wareegtay 23 sanadood ay ka soo wareegtay
oo baarlamaankuna uu yahay baarlamaankii 11aad uu yahay intaaba wada shaqayn joogto ah iyo xiriir joogto ah iyo iskaashi joogto ah iyo iska warhayn ayaa maartay ku jireen labada baarlamaan sina uma kala maqnayn isma moogo sidaasayna haddii ilaahay yidhaahdo ku shaqayn doonaan weligoodba shacabka iyo dowladda jamhuuriyadda Jabuuti muddo dheer ayay soo garab taagnaayeen Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba hadda waxa soo kabatay qaranimada Soomaaliya inta kadib jamhuuriyadda Jabuuti waxay Soomaaliya ula dhaqmi jirtay si ka duwan wadamada kale uga dhow hadda maxaa u qorsheysan inay isaga soo dhawaadaan oo sidaan iyo si ka badan ay isu sii dhawaadaan labada wadan mase inay sida dowladaha kale ee caalamka u wada dhaqmaan Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa nina intuu ku jiro kuma soo dhaaf waxay ka dhigan tahay qof walba inta uu ku jiro qaraabo ahaan ayaa gurmadkiisa iyo gargaarkiisa iyo taakulayntiisu ay leegtahay annaka iyo dowladaha kale ama ha noqoto kuwa geeska Afrika ama kuwa adduunka caalamka ha noqoto ama kuwa islaam ha noqoto annaka iyo uga xaqle cid kastiba jamhuuriyadda Soomaaliya ina taakulayno ina gargaarno ina gacanta qabanno annaka iyo cid walba uga xaqle sidaa daraadeed xaqaasi horena waanu muujinay oo kolkii aan maartay shirka loogu qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele loogu qabtay magaalada Carta ugu qabtay tiyo adduunka uu ka quustay oo adduunku ka sii jeestay oo albaabada laga xidhay oo ma garanaysaa laga quustay ayuu isagu ka quusan waay cishadii dheed waxaan idhi marxaladda kolkay Soomaaliya ku jirtay shacbi qura iyo shakhsi qura aan ka quusan shacbiga qura waa jamhuuriyadda Jabuuti shakhsigana waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele kolkaasi sidaa weeyaan haddaba su'aal la isweydiiyaba ma in annaka iyo dowladaha kale ee ama Afrika ama geeskan Afrika ama adduunyadu inaan u gudboonahay Soomaaliya maba dhici karaysaba cid walba waan ka xignaa cid walba waan iska xignaa ciddii kuu xigta un baana maartay ku diirnaxaysa dhaarta dhibaato qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamada hiil walaal ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS sanadka soo socda ee 2024 dabayaaqadiisa waxaa qorsheysan ciidankaas ay ka baxaan Soomaaliya oo amniga wadanka si buuxda loogu wareejiyo dowladda iyo ciidanka qaranka Soomaaliya ma jira qorshe ka duwan wadamada kale ay ka socdaan ciidamada ATMIS oo Jabuuti ay ka leedahay howlgalkan ciidamadaasi sidaad adiguba sheegtay way joogaan oo beledweyne iyo jalalaqsiba way joogaan waxayna u joogaan si ka duwan wadanada kale sababtu waxay tahay de wadanada kale waa wadano ayna isku afahayn isku dhaqan ahayn isku caado ahayn isku curuf ahayn bes intooda bes hadda barkooda hadda soo qaato diirka uma ka dhaxay Afrikaanimada laakiin ciidanka Jabuuti iyo ummadan ay u yimaadeen waa dad isku milmay maadaama ay yihiin dad isku duba isku diira isku af ah isku dhaqana isku caado ah kolka cid walba dadkan ay u yimaadeenna way ka yar xigsiisanayaan oo had iyo jeer way ka xigsiisanayaan kuwan maartay askartan reer Jabuuti ee loo keenayna waxay u arkayaan askar wadankoogii laga soo qaado wadankoogii la keenay xeeradoodii ciidanka Jabuuti ku lahaayeen docdan laga qaado docdan kale la geeyay bay u arkayaan sida ay dhibaato uga dhaxdhici laadahay sida gobolada kale ciidanka reer Jabuuti ee labada degmo jooga iyo shacbigaasi reer Soomaaliya ee la joogaan walaalahooda sida ay dhibaato u dhaxmarnaada waa dad mida labada dhanba way qiirsan yihiin inay yihiin dad mid ahata oo ma garanaysaa isku dubiya isku diira cid walbana uga naxdin badan uga jecel badan marka dhibaatana waa uga naxdin badan yihiin marka ma garanaysaa ay dhibaato timaadana iyaga uga gurmad badan kolkaas sidaa weeyaan laakiin sida imka su'aasha u dhigtay 24ka in ay hawshoodu halkaa ku joogsataa laga yaabaa howlgalkan ATMIS imka loo yiraahdo waagi horena AMISOM loo oran jiray annagu de qaraar gaara maadaama waxana ay tahay hawlo guud oo magaranaysa ka dhaxeeya wadanadaasi askar ciidanka wada keenay ay ka dhaxayso siibana urur goboleedka IGAD annagu qaraar gaara ka qaadan mayno laakiin waxa weeyaan waxay u taalaa sidii kolba loo maareeyo haddii la yidhaha dib ha loo cusboonaysiiyana waa ahlan wa sahlan haddii sidaasi ay ku dhammaatana
kolley baa annagu siyaabo kale oo walaalnimo yaan haddana magaranaysa u taageeraynaa. sidaa sheegtaba mudane xildhibaan ciidamadaas hiil walaal ee Jabuuti ka socda waxay ka howlgalaan magaalooyin ay ka mid yihiin Jalalaqsi iyo Beledweyne oo Hiiraan ah iyo Dhuusamareeb oo Galgaduud ah caasimadda Galmudug. ciidankaasi Jabuuti ka soconaya ee hiil walaal waxay uga dhow yihiin ciidamada ATMIS dadka Soomaaliyeed oo waxay u gargaaraan si lamid ah ciidamada Soomaaliya. tusaale magaalada Beledweyne markii ay ka dhacdo fatahaadu waliba fatahaadii ugu dambeysay waxaa dadka loogu gurmaday oo biyo baxada looga saaray gaadiidkii ciidamada Jabuuti. shacbiga wadanka Jabuuti ma soo gaartaa fariinta wanaagsan oo ay gudbinayaan ciidamada Jabuuti iyo sida ay shacabka Soomaaliyeed u gargaaraan ciidamada hiil walaal? dib iyo dheefba annaka ayaa ugu gurmad horeyna. sidaa daraaddeed askartaasi reer Jabuuti dhibaato kasta oo ku timaada dadkaasi hadday fatahaado tahay hadday tahay xanuuno oo maartay dawooyin uga baahan yihiin wax alla wixii dhib ku yimaada ciidanka reer Jabuuti ayaa ugu gurmad horeeya ugana tallaabo dheer uga fara dhuudhuuban cid walbana. waana la og yahay shacbiga Soomaaliyeedna way og yihiin siibana kuwa ay la degan yihiin gobollada ay joogaan iyo degmooyinka ay joogaan kuwa ku dhaqan iyo guud ahaanba madaxda iyo shacbiga Soomaaliyeedba way og yihiin dharaar walba dadkaasi wixii gargaar ay u geystaan ciidamada Jabuuti way og yihiin. taliska Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Jabuutina way og yihiin. shacbiga Jabuutina way og yihiinoo wax magaranaysa noo kala qarsooni ma jirto. sidaa daraaddeed mar walbana waa lagu tirtirsiiyaa hadday tahay madaxda ciidanka hadday shacbiga tahay way hambalyeeyaan way ku tirtirsiiyaan. laakiin waxa weeye dad annakaaba maartay iyakaaba nooga orod badan cid walba oo intaan annagu ku tirtirsiin iyakiiba nooga sii horeeya. ugu dambeyntii mudane xildhibaan xog haya Suleymaan waxaa ka qayb gashay sida aad sheegtaba furitaanka kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. maxaa kaaga baxay hanaanka uu shaqeynayo baarlamaankan 11aad ee Soomaaliya? baarlamaanka waxaa iga baxay baarlamaan tayo leh aada u shaqeynaya xildhibaano soo jeeda doodaya kolba wixii dadka iyo dalka u dan ah ayaa iga baxay. waana sidii inay ahaato ay tahay weeyaan oo dee baarlamaan walba iyaku un maahine baarlamaan kastoo adduunka jirayba intaa unbay ka doodaan wixii ku saabsan xeer hoosaadkooga iyo wixii kolba danta wadanka dabaqaya ayaa lasoo hordhigaa kana doodaan dabadeedna ay go-aan ka gaadhaan. kolkaa kuwa unbay ka mid yihiin. waxaana maarata nooga baxay in dawga un ay ku joogaan. waxaana ku hambalyeynaya ku tahniyadeynayaa inay sidaa kusii wadaan inay iska ilaaliyaan wixii kolba nuqsaan ku keenaya ee khilaaf iyo maron iyo inay mar walba dhowraan oo maarata u taagnaadaan xeer hoosaadkooga sidii kolba au qeexayo iyo kala dambeyn iyo nidaam inay maaragtay ku taagnaadaan ayaan ku ogaaninayaa. waayahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wareysiga gaarka ahaa ee xildhibaan Suleymaan Daahir Bile xogayaha joogtada ah ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti uu siinayay telefishinka qaranka Jabuuti isagoo oo ku sugan magaalada Muqdisho. aadan kugu mahad celinaynaa xildhibaan Suleymaan. adiga mudan.